ugu yaraan 15 qof oo rayid ayaa la dilay kadib markii ay rakubaysan ay weerar ku qaadeen gaari bas oo ay saarnaayeen gobolka Oromiya ee dalka Itoobiya. gaarigani sidii dadkani la weeraray waxa uu ka soo baxay magaalo yar oo lagu magacaabo Buur ee ku taala gobolka Amxaarada. raggan hubaysan ayaa waxa ay gaarigani ku joojiyeen degmada Meero kadibna waxa ay ku fureen rasaas sida ay sheegeen booliska deegaankaasi. booliska ayaa waxa ay weerarkani ku eedeynayaan koox ka mid ah Oromo. ma jirto wax war oo ilaa iyo imika ka soo baxaysa jabhadda loo soo gaabiyay OLI, balse kooxdani ayaa horey u diiday eedeymo loo soo jeediyay oo ahaa inay dad rayid dileen. kooxdani OLI ayaa garab hubaysan oo horey u go'day jabhadda Oromada oo imikana ka mid ah xisbiyada mucaaridka ee ugu waaweyn gobolka Oromiya. taliyaha booliska deegaanka weerarkani ka dhacay ayaa telefishinka dalka Itoobiya u sheegay inay jiraan dad kale oo dhaawacyo ay soo gaadheen. intii toddobaadkani 5 qof ayaa lagu dilay qaybo kala duwan oo gobolka Oromiya ka tirsan kadib markii gaari ay la socdeen ay weerareen rag hubaysan oo aan hubatidooda la aqoonsan. weeraradan ayaa ku soo beegmaya xilli ay isku dhacyo dhex marayso qowmiyadda Oromada iyo Amxaarada oo ay dad badani ku dhinteen. arrintan ayaa waxaa ka dhalatay dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda oo lagu eedeynayo inay ku guuldareysatay xaqiijinta sugidda ammaanka dadka rayidka ee dalka Itoobiya doorashada guud, balse dhibaatadan amni darrada ee ka imanaysa kooxaha hubaysan iyo kuwa dhacyada qowmiyadda ayaa laga cabsi qabaa inay doorashadani calqaladayso. waa Cabdalla Maxamed Abbas, warbaahinta Badcas.